بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال وبرنامج كني لما قعبحي هول المالميت كنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفدقي أما كلن كي كوي لواتنات يعني وجهل لي برنامجك وحن حبرتمها وجرني هبين كي نبي عليه الصلاة والسلام قارهان صلاة ليلك أما تهجدك أما قيام الليلك وتكنجري يسيدا أي هانجرتي waxaan tilmaamnay salaada iyo qaabka waqtiga uu hurdadiisa qaybta uu seexan jiray iyo waqtiga uu salaada u istaagi jiray. Salaada waxay astaan ku ahayd inuu ku furfurto ducooyin aad u qiimo badan. Ducooyinka waxaa ka mid ahaan jiray ducada Allahumma rabba Jibraa'iil wa Mikaa'il wa Israafiil faatir as-samaawaati wal ardi caalim al-ghaybi wash-shahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima ikhtalafa fiihi من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومعنى هذا وياهي الله يو ربك جبريل يا ميكائيل يا إسرائيل ربي قوضو الله السماوات يا أرلك أبو ريو وعد أجه الرئيسي سنجرين الله أك وحا قرصون يا وحا مغضبة أك أديك أياك الحكومة الضمان كاجا دحضو ذا وحا إسكو هيسان وإسكو خلاف سنيهين ربي يو هنوني وحا الإسكو هيستو حق igu hanuuni biidnik idankaaga iyo ogolaanshahaga maxaa yeelay adiga ayaa dadka cidda aad doonto adaa ku hanuuniyo wadada iyo tubta toosan. walidaalika khilaafka hadda waa batay inta wala isku dhagay nin walba xaqi buu sheegtay, nin walba inuu isaga ugu saxsan yahay iyo madhab sax inuu haysto sheegtay. walidaalika ducooyinkaas hadduu nabiga badin jiray calayhi salaatu wasalaam maxaad inaga moodaa inaga ayaa uga baahi badan inaan ku ducaysano nirahno ihdinii lima ikhtalafa fiihi min alxaqi biidnik innaka tahdi man tashaau إلى صراط مستقيم. دعوينك سوى كم إذا نبي اللهم ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما علنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم الله يو ربي جينو ما هذا نعذيك وسقناتي وحتى هي نور كيس ماذا يا الله يعدة لحظة إذا هاتيبا ما هذا أذيك وسقناتي وحتى هي الله السماء يا الله عدة يكتها أنت وأذيك أذا هي لك الحمد ما هذا أذيك وسقناتي بقرك السماء يا الله وأذيك يعدك عدة كل حجرتبه ما هذا أن أذيك وسقناتي أذيك وحتى هي حق الله حقه نبه وعديجاga iyo ballanqaadkaagu iyabo haaguna waa dhab weeye. liqaagaaga in lagu la kulmi doono lagu hor istaagi doonana waa dhab. hadalkaaguna waa hadal xaq oo dhab ah. jannaduna waa wax jiro xaq ah. naartuna waa wax dhab ah. nabiyadu ilaahay uu soo dirayna waa xaq jira weeye. muhammad sallallahu alayhi wasallamna waa xaq weeye. saacada qiyaama inay dhici doontana waa xaq weeye. allah yow adiga ayaan isku kaa dhiibay, adaan ku rumeeyey, adaan ku tala saartay, adiga ayaan ku toobad keenay, adiga daraada baan doodaydu aan ku dhisayaa, adiga ayaan ku xuguntamayaa oo waa maxay u soo laabanayaa. ilaahu ii dhaaf wixii aan hormarsaday iyo wixii aan dib marsaday oo dunuub ah, waxa aan qarsaday iyo waxa aan muujistay oo la og yahay. ilaahayow ii dhaaf, adiga ayaa u ogaal badan igana og naftayda. adiga ayaa ah mid ka horeeyay, adiga ayaa ah mid ka dambayn doona. ilaa xaq lagu caabudo ma jira adiga mooye, xeelad iyo awood midna ma lihiin ilaa inaad adiga ina siiso oo inagu caawisa mooye. ducadaas qiimaha badan ayuu ku ducaysan jiray oo kulligii tawxiid iyo waa maxay addoonnimada iyo tadarruc iyo isbihinbihin
isjajabin ilaahay subxaanahu watacaala laisku jajabinaya ku dhisan. waxaa ka mid ah ducooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadiisa habeenka uu ku furfuran jiray: wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan wama ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi alcaalamiina laa shariika lah wabidalika umirtu waana min almuslimiin allahuma anta almaliku laa ilaha ila anta rabbii waana cabduk ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. wejigayga waxaan u jihayey allaha samaawaadka iyo arlada abuuray oo aan looga horreynin, aniga oo gaalnimoo dhan ka soo leexday waddadii toosnaydna u leexday. mana ahi mid mushrikiinta ka mid ma ahi. salaadayda, tukashada aan tukanaya, gowracayga iyo noloshayda iyo geeridayda, xayaatada dhan waay nolol iyo geeri iyo cibaado iyo gowrac, wax kasta lilaahi rabi alcaalamiin, allah iska leh, cid la wadaagtana ma jirto. saas ayaana la amray, anigana muslimiinta ayaan ka mid ahay. allaahuma allahayow adiga waxaa tahay boqorkii, ilaah xaq lagu caabudana ma jira adiga mooye, waxaa tahay rabbigay, anigana addoonkaagii baan ahay. naftayda ayaan dulmiyo ku gardarooday, waanan qirsanahay dembigayga ee ii dembi dhaaf, dunuubtayda oo dhan ilaahu ii dembi dhaaf, maxaa yeelay cid dunuubta dhaafta ma jirta adiga mooye. ilaahu igu hanuuni akhlaaqda iyo dabeecadaha midda ugu wanaagsan, maxaa yeelay dabeecadaha midda ugu wanaagsan cid ku hanuunin karta ma jirta adiga mooye. walidaalika dadku hadda akhlaaqiyaadku waa waxa ugu muhiimsan. diinta nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye waxay ku dhisnayd khuluqa iyo dabeecadda. inamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq. walidaalika waatuu dhihi jiray nabi sal slam adabanii rabbii fa axsana ta'diibi. ilaahay baa i tarbiyeeyey oo i adbiyey, wuuna hagaajiyey tarbiyadeyda iyo ta'diibintayda. waa tan uu ku ducaysanaya salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, akhlaaqda iyo dabeecadaha midda ugu wanaagsan igu hanuuni, maxaa yeelay cid ku hanuunin karta ma jirto adiga mooye. ayib, walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducooyinkan: wasrif canii sayi'aha, ilaahu iga leexi akhlaaqda xun. akhlaaqda xun cid ka leexin karta iga leexin karta ma jiro adiga mooye. ilaahu waan ku ajiibay, waanan ku yeelay, khayr oo dhanna gacantaadu ku jira, shartana adiga xaggaaga looma tiiriyo oo looma leexiyo. rabbiyo waad sarraysaa, waadna barakowday. waa maxay dembi dhaaf baan ku weydiisanaya, waanan kuu toobad keenaya. waa nabi maxamed sal slam. walidaalika nabiga hadduu qur-aanka akhrinaya habeenkii wuxuu akhrin jiray qiraa'o kala dhigdhigan oo muratal ah. hadduu aayad aan soo maro naxariis ana sidaan tilmaamnay, ilaahay buu weydiisan jiray. istaagiisa wuxuu istaag aada u dheer. walidaalika ibnu mascuud wuxuu tilmaamayaa nabiga ayaan salaad la tukaday sal slam habeenada ka mid ah, markaasuu kamuusan zuulin inuu yahay mid taagan ilaa aan hamiyey arrin xun. waxaa la yidhi maxaad hamisay? waxaan hamiyey buu yiroo damcay in aan fadhiisto, nabigana isaga taga sal slam dhacnay salaada dherarkeeda. mararka qaarkood qiraa'ada wuu dheerayn jiray, wuxuu yareyn jiray rakacaadka ayuu yareyn jiray, qiraa'adana wuu dheerayn jiray, ragcada yar iyo qira dheer buu ku tukan jiray. mararka qaarkoodna waxaa dhici jirta inuu dhexdhexaad ka dhigo oo rakacaadka uu badiyo, qiradiisana uu yareeyo. salaada habeenka uu nabiga tukan jiray sal slam kama badnaan jirin 13 ragco kama badnaan jirin. wuxuu dheerayn jiray rukuucda, ayuu dheerayn jiray. rukuucdiisana waxay ahaan jirtay mid maxaa la yidhaahdaa u dhow istaagga iyo qiyaamkay u dhowaan jirtay. rukuucdu waxay u dhowdahay istaagga. wuxuuna oran jiray rukuucdiisa uu ku oran jiray, uu ku dhex akhrin jiray: allahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu wacalayka tawakaltu anta rabbii khashaca samcii wabasarii walaxmii wadamii wamukhii wacadmii wacasabii wama istaqalat bihi qadamii laa ilaaha ila allahu rabu alcaalamiin subxaana di ljabaruuti ذي الجبروت والكبرياء والعظمة سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ducadaasuu ku ducaysan jiray oo ay tahay: allahuma allahayow adiga ayaan ku rukuucay, adaan ku rumeeyey, adaan isku kaa dhiibay, adaan ku tala saartay, rabbigay baa waa rukuucsan yahay nabi sal slam. waxaa weye maqalkayga iyo indhahayguba adiga kuu khushuuceen, hilibkayga iyo dhiigayga iyo waa maxay dhuuxa iyo lafaha iyo waa maxay acsaabta iyo xididada intaba adiga ku khushuuceen, iyo lugahayga wuxuu ku tagay waa jirkayga oo dhane adiga ku khushuucsan yahay. allaha rabbulcaalamiin ah haddaa tahay, subxaana di ljabaruuti walkibriyaai walcadama, ceeb oo dhan waxaa ka hufan allaha weynanka iyo cadamada iyo kibriyada iyo waa maxay qasbidda u saaxiibka ah. subuuxun quduus, waxaa tahay mid ceeb oo dhan laga tahiray, laga nadiifiyey oo la qadisay ayaa tahay. rabbigii malaa'igta iyo gaar ahaan jibriil rabbigiisa ayaa tahay.
ducadaas ayuu rukuucda ku dhex akhrin jiray nabiga sal slam noloshiisii markii gabagabadii aakhir xayaatihi markuu dhiman rabay mar u dhow wuxuu rukuucda iyo sujuudda dhexdeeda aad u badin jiray inuu yidhaahdo subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii rabbiyow ceeb oo dhan waad ka hufan tahay rabbigeen baa tahay mahadoo dhanna waad ku tilmaaman tahay ilaahu ii dembi dhaaf caaisha radia allahu canha ayaa weydiisay waxay tiri akhbirnii maxaa dhacay ood u badinaysaa ducadaas wuxuu ku yidhi nabi sal slam akhbaranii rabbii annii sa araa calaamatan fii ummatii ilaahay baa wuxuu ii sheegay inaan ummadayda calaamad ku dhex arki doono markaan calaamadda aan arko waxaan badinayaa inaan iraahdo subxaana allahi wabixamdihi astaqfiru allaha waatuubu ilayh calaamadaasna waxay ahayd waan arkayo آيدي سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تا أي أهيد أو أهيد إن نبي عليه الصلاة والسلام dadku markay diinka soo galaan oo maka la furto oo dad badan diinku ay ayagu fooj ay koox ay u soo galaan markaasi islaamkii waa faafay waa intishaaray geeridaadii baa soo dhow waqtigaagii ajashaadaa soo dhow ee ilaahay ceeb oo dhan ka huuf oo u tasbiixso ilaahay ku mahdiyo alxamdulilaahi badi dembi dhaafna alla weydiista ilahay waa mid toobad aqbal badan markaasuu wuxuu badin jiray subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii walidaalika walaalayaal in aan badinno rukuucdeenna duxooyinkaasi hadduu nabi maxamed sal slam uu sidaa ahaa uu rabbiga ugu tadaruci jiray innaga ayaa uga baahi badan hada allahu aclam وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه